Hyundai shirkadda cilmiga injineerka iyo dhismaha ee Hyundai waxay ka mid tahay shirkadaha ugu horeeya dhanka wax soo saarka baabuurta. Asaasiga shirkaddan waxaa lagu magacaabaa Chan Chinyang. Wuxuu aasaasay 29 Disembar 1967 oo laga joogo 2 sano. Hyundai xilligii isku dayday inay horumariso wax soo saarkeeda waxay shaqaaleysiisay George Tambol 1974. agaasimihii hore ee maareynta Austin Morris ee Ingiriiska ayaa wuxuu Hyundai ka shaqaaleysiiyay 5 shaqaale oo kale kuwaasi oo ahaa injineero baabuurta oo reer British ah. sanadkii 1975 Boeing oo ah baabuurkii ugu horeeyay ee Kuuriyada Koonfureed ayaa gacanta laga qaaday. Hyundai waxay soo gashay suuqa Ingiriiska sanadkii 1982 iyadoo xilligaasi iibisay 2993 baabuur. 1986 Hyundai waxay bilowday in ay iibiso baabuurta gudaha dalka Mareykanka. Shirkadda Hyundai waxay isku dayday inay isbedel ku samayso wax soo saarkeeda. Hogaamiye xilligaas oo ahaa Chan Chinyang wuxuu Hyundai ku wareejiyay wiilkiisa Chan Mong-ko 1999. Hyundai-na waxay noqotay shirkadda waalidiinta. 2006 xukuumadda South Korea ayaa bilowday inay baaritaan ku sameeyaan Chan Mong-ko oo ahaa madaxii Hyundai iyadoo tuusan inuu ku kacay falal musuqmaasuq. 28 Abriil 2006 waxaa la xidhay Chang isagoo lagu soo eedeeyay falal musuqmaasuq oo dhan 100 bilyan oo Kuuriyada Koonfureed ah. natiijadiina waxay noqotay in gudoomiye ku-xigeenkii Hyundai iyo madaxii fulinta waqtigaasi Kim Dong-jin ay isu bedeleen madaxa shirkadda. muddo kadib heerar iyo maraaxil liita oo kala duwan oo ay soo martay Hyundai waxay 2014 bilowday dadaal waxay diiradda saartay hagaajinta dhaqdhaqaaqa baabuurta. shirkadda Hyundai waxay wax soo saarkeeda ganacsi xarumo iyo maalgashiba ku samaysay dalal badan. shirkadda Hyundai wax soo saarkeeda iyo dadaalkeeda ayaa maanta horseeday inay ka mid noqoto xarumaha ganacsiyada ee adduunka ugu weyn iyadoo baabuurta iyo waxyaabaha ay soo saarto maanta laga isticmaalo dunida. xarunteeda guud ayaa ah South Korea khaas ahaan Seoul. maamul badan oo ay soo martay mulkiilaheeda maanta waa Lee Won-hee. baabuurta Hyundai-na maanta ay soo saarto ayaa ah kuwa ay ka muuqato calaamadda dad badan oo micnaysteen magaca shirkadda oo la geliyay oo balse taasi aan ahayn oo astaanta loo qaatay calaamadaasi ay tahay mid muujinaysa laba ka mid ah macaamiisha shirkaddani oo isgacan qaadaya.